Allahayo hooyadeen hoy jannada ka see. Allahayo hooyadeen hoy jannada ka see. She's my pillow when I cry. She holds me inside when I can no longer fight. Oya is my light at night to guide me when I can't see right. Allahayo hooyadeen hoy jannada ka see. Oya is my heaven on earth when she gave birth to me. Oh, if only you knew what she's worth to me. I close my eyes every night to beg God to let her inside heaven before me. Allahayo hooyadeen hoy jannada ka see. Oh Allah, please, I beg you on my knees for my mother to be amongst the ones you are pleased with. Let her lay in the gardens of heavens, drink from the rivers like Hawa and Adam. Allahayo hooyadeen hoy jannada ka see. And I promise to pray till her sins are pardoned, erase the mistakes she ever made. Allahoyo, أذيك ويانك قلبك. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalahey ku xiran channelkayga Simple with Asma. fadlan hadaa nagu cusub tahay subscribe noo dheh, hadaa hore noola joogi jirtayna soo dhawaa ku leeyahay share iyo like tana hanaga iloobin insha Allah. maanta waxaan idin wadaa routine yar oo dheel routinkeyga caadiga waxaa qabta maasha Allah. saa ujeedaan gurigan ka bilaabeynaa. marka ugu horeyso waxaa idin rajeynayaa inaa caafimaad qabtiin, qof walbana meeshuu joogi lahaa ku nabad yeelo, waqti kasta idin taana ha idin wanaagsanaato insha Allah. qof walbo insha Allah ilaahay qof walbo oo xanuunsan caafimaad Allah siiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidii walaal ehli qaraabo kulliba. qof kasta oo xanuunsan iyo qof kasta oo buko iyo meeshuu ka buka ilaahay caafimaad taama siiyo. routiinkeena maanta wuxuu ka bilaabanayaa guri hagaajin. iska fiirihee maanta gabartiina waxay idin wadaa guri hagaajinaysaa. gurigana hagaajinoyaa qolkii maanta jiifka la hagaajinayaa, waa la hagaajinaa, waa la kala tuuraa insha Allah. waa caadi routiinka caadiga subaxii ma ahayn, hadda waa waqti duhur camala. duhur kadib waa aadi waqti dambe waaye, galabtii wixii la qaban lahaa ilaa galabtii waa ilaa caawaadi. routiinkan fuulkiisa waa intaas. waa ujeedaan heenan tireedna way daba ordaysaa, waxay leedahay shaqada geeskeygaan ka qabanayaa. gurigayaa lasoo hagaajiyey, sariirtayaa lasoo nadaamiyey, waa lasoo baxay, fadhigayaa la imaado, waa la ordooyaa. aan ku dhaha meeshan fadhigayaa la xaaqooyaa, waa la baangeeyey fadhigaas. marooyinkaas la-aantiisa fadhigoo carara in la arki lahaa u malaynaa. yaa ilaahay mahadiisa marooyinkaasoo ilaahay ku dhar qabtay ma ogeey, fadhi carara la arki lahaa. magaalada kasii baxay intee u socotaa markii la wasaq iyo wax si loogu daadinayaa loogu dhigo. maradaas wixii lagu daadiyay waa laga bixinaa, hadda kuwaan ka bedelay, waa laga dhaqayaa. yaa markii xoogaa lagu dadaadiyay wax ilma wax ku tiraan wax ku haleeyaan waa laga dhaqayaa. ilmo meesha haday joogaan yaa haliya lama dhahayo, waa ogtihiin. baahile waatana fadhigee tirtiruusaa maalinta maalin wiigi hal maalin shaqo weyn la qabtaa. haddii kale saan le lagu farteena maanta dhan wax kasta laaleyna gacanta la gelinaa biyaha. inta kale habeenkii la qabsadaa shaqada. habeenkii markay ilmaha ay kala seexdaan waxaa qabtaa inaan guriga tirtiro, weelasha iska dhaqaqo, waxyaalaha yarka iskala qabto, iska turtuuro. hal maalin marka wiigi aan leeyahay oo maalinkii xalaalahay maxaa la iftiin ala quutaa soo baxay. hadda weelashii dhan aan soo gudiyay maanta, weelashii dhan aan la qarbaa. weelashii oo dhan meesha ay ku jireen iyo wax dhan aan la nadiifinayo, dhulka iyo leen dhan meesha laga qaaday. beelkii weelashii lagu ridaa laga qaaday. waa dhulka iyaga inta dhulka la nadiifiyay meesha dhan nidaam laga dhigaan ku dhaca. weelashii u qalalaan dartiisa meesha lagu baangeeyay. way yartahay jikada walahi bilaa intaas le waa halkaas dhinac le waaye, halkaas dhinac le haystaa. meesha weelash lagu dhaqay intaas yartaa waaye. intaa waxaan rabaa inaa weelash igu qalaan. markay weelash ii qalaan kadib le inaan soo saaro inta qalajiyo iyadana inaan kadib weelash soo saaraan rabaa. marka waa kaasa haysaa ujeedaanba. waa kaasa weelash way qaleen maasha Allah tabaaraka raxmaan. saa ujeedaan weelash markay qalee waa soo baangeynaa. hadda fadhigiyaa loo imaado wuu qalle, fadhigi waa la hagaajiyey mugtee. igaartireedna way dab ordaysa miga haraysaan ku dhehe. markuu maqan yahay igaarka, markuu maqan yahay yaa ka celinaya igaarta isaga. haddii galabtii banaanka iyo maaweelo loo diro banaanka aad la dhaho, ayada waxaan ku dhahay tarafteeda ku dhagantay. ilaahay intii oolaad haysato ha u barakeeyo, anagana Allah noo barakeeyo. intaan haysanin Allah siiyo wax kheyr qabo oo barakeysan oo caafimaad qabo insha Allah tabaaraka raxmaan.
markaasaa ujeedaanba waa kaasaa roogiisa dhac lagu soo siiyey fadhiga waa la kala tuuraa la saaxiib waa kaasaa iga dhamo camal halmaraa qolkiina waa lasoo kala dhameeyey waa qalalay waa lasoo tiro qolka naftirkiisa lama reebin wax dhan waa la tirtiraya maanta wax dhan tirtira weyn aa lagu qabtay aad baa loo nadaaminayay marka waxaa la rabaa habeenkiile wax la tirtiraa mogta habeenkiina waqtigiina mugdi waaye inkastoo nalkaa la shidaayo nalkaasoo unbaa la tiraya sida maalinkii meel kasta gacanta loo gelinayo looma gelinayo habeenkii into muuqato leedhe aad iskale inta dumaash arkeen kale la tiraa marka hal maalina jac laga siinaa oo loo jimciyaa hal maalina loo jimciyaa maasha allah maanta waxaa sameysan rabaa xawaaji yaraa sameysan rabaa oo aa isku darsada aniga oo carafaha gurigaa ku sameysa abaa wixii xawaajigii lagaa siin lahaa banaanka intaas camal lagaa siin lahaa 200 waa kaas maasha allah raxmaan intii 200 lagaa siin lahaa ama 300 lagaa siin lahaa oo lacagta Kenya waxaa jeclaystay inaan gacanteeda ku sameysto gurigeena ku sameysto waxyaalo badan aan isku darsanaa intaasoo geedo aa ujeedeen aan isku soo dardarsaday meesha ii soo qalashay waa tirtire meesha weelasha waa ka aruuriyay waa baangeeyay waa tirtiraya markay qalasho meesha nidaamku waxaa sameynaysaa le dhac weelasha soo saarnaya markaan insha allah waa kaasaa weelashaa soo saartay walaalaheeyow subscribe-ka ii saaro oo viewska waa eurowalita ii share gareeya qof walbo meeshuu wax ku haystaa ii share gareeya Facebook iigu share gareeya meel kasta iigu share gareeya maadaama viewska aada u hooseeya waxaa galaya kudha wallah waqtigaa galaya videoga samee hagaaji edit garee duubitaankiia waxay tahay markaa ilma haysatid haddana wax aada u adag taleefonkii bahalkii lagu duubayo oo la jiidanayo arkee oo lala sii ordaayo ilmihi ku dhex ordayaan wax walba sameynayaan maasha allah ilaaha noo deysto laakiin dhinaceedana hadday ka jiifato macnaha aaday u dhib badan tahay wixii haddii macnaha dhiirigelin iyo horsocod aadaysan way dhib badan tahay hadda waxaa ujeedaan xawaajigaa soo shiidanaya insha allah xawaajigaa soo darsaday qeyb u kala shiidayaa maadaama uu qalalan yahay waxaa fiican si fiican si kugu shiidmo inaa qeyb u kala shiidid hal maraa buuxinayaa weelkaa ku shiidaya haddaa dhaho macnaha miro ku jira la arkaya xawaajiyada qaarkood oo taagtaaganaa la arkaa intay ka tagto makiinada marka saas darteeda waa kala shiidayaa qeyba kusoo kala shiidanaya insha allah qeyba usoo kala shiiday qeybta labaad waa hadda u dambeysay ku gedinayaa caraftee wallahi ma maleysa kartidaa ku dhow waa qorfo waa heel waa dhagayare waa geedahan oo warqad shajara maalaama aqaan geedaha briiska lagu darsado waa rosemary waa xawaajiyada labada xawaaji kale waa wax kastoo aad haystid oo carfaayaba oo geed ahoo dhan isticmaal adi waxaan sun ahayn oo dhan oo carfaaya maaragta iska isticmaal maasha allah tabaaraka raxmaan waa ujeedaa hadaas jibiisha qalan ladahaystoo kale aada u fiicanta anima ii aalin teeda kalena waxaa iga maqnayd hataa filfishana aada u fiicantaa wax yaroo kuleel yara siine aaday u fiicantaa iyadana naftirkeeda ma ku darsanin because maba haysanin waana iloobay hataa inaa soo gato waatana cashadii irtaa kusoo tuuray cashadii waaye iyadana waa soo kala tuuraya inaa cashadan kala tuura maasha allah saa ujeedaa bacashada dabkii saaran laba dabaa kala shitay digsigii baastada digsigeeda iyo ku jirto waxaa kor saaran waxaa waaye maxaa kor saaran daas leeda oo shabaqa ku jiro shabaqa waxaa ku jiro kaarot yaroo cabitaan rabo inaan ka sameysto kaarotka markaa haddii oo makiinada ka cabsanayso kale inay kuu shido waa ogtiin kaarotka waa adag makiinadaha qaarkood way jabayaan
taagtaagna way kaa noqonaysaa macnaha ilmo kala daasiinaysa softi ma noqonayo cabitaankii macaanna macaan wuu noqonayaa laakiin haddaad haysanin marnaba makiinadaas inta loo geliyo biyaha bas kasoo daadinaysa qashinkana banaanka dhigaysa saasaa la samaystaa waa la jartaa cuntada aad karinaysid bariis hataa hadduu noqdo markaa bariiska dabka saarto isku dadartoo hagaajisid oo biyeysid oo waxaaga dhan inta kuu karayaa dusha laga saaraa huuris camal oo noqonaya way bislaanaysaa haddana saa ujeedaan suugadii soo diyaarsaday dabkaa soo saartay hilibkii iisoo yara karay kadib waxaa ku darsaday wax cagaarnaa wuxuu ahaa zukiini ama bocorka cagaaran iyo yaanyo waa soo xoqda labadooda ma soo shiidin inaa shiida ma rabin waa soo xoqday markaas soo xoqotid wuxuu u dhigmaa sida inaad soo shiida camal wuu burburaya eber xawaajiraa kusoo darsaday maraq digaaga kusoo darsaday macaanaa ku dhaha geedkaas cagaaran marka lagu daro oo zukiiniga ama bocorka la dhahayo bocorka yararka kadib bardho iyo karootaas kusoo darsaday waaba casho yaroo ha noolaata la dhahayo waayo oo 5 daqiiqo ah ku tuur waayo oo ka tuur maqli jirteen maasha allah anaga walba waa yarnaha 3 qof ana waa ilmo iyo hooyadood maasha allah ilaahana barkeeyo waa kaasahay karasta ujeed saas markaa dheed waxaa la rabaa qaandada ama ciddada saas u gelisa dhac inay dhehayso kadib waa soo shiidaysaa haddaa haysid makiinada yarta ah waa kusoo shiidanaysaa ani xoogaa yar weli hadda adeega ka dareemay because marka u horeysa oo biyaha intay baastada biyahooda ay soo karkarin kuma bilaabin gadaalaa ka saaray oo markii baastada ku daraa saaray baastadana waa ogtihiin waxyar bay ku bislaanaysaa marka waxaa kusoo shiitay galaaska yarka oo xawaajiyadii lagu shiiday waxyaalaha qallalan iyadoo xoogaa soo jilacday laakiin sida kirta aanay zaa'idka smoothie noqonay waa kusoo shiitay kusoo jilciyay kaas kadib waxaa kusoo darsaday cambaa shiidanay macaan smoothie waxaan ku dhaw wallah wax kale dhadhamaysa soo tijaabiyay insha allah dadka aan aqoonina soo tijaabiyaan kadib waatana cashadeeni habeenaa la gaaray waa casheyneynaa maasha allah tabaaraka raxmaan ilaahay intii haystaa u ziyaadiyay intaanaysan allah siiyo wax kheyr qabo barakeysan subscribe idhaha intaanadaa soo gaartay channelka aada u mahadsan tahay daawashadaada subscribe idhah like iyo saar commentina soo sii insha allah dhiirgelinta waa xaggeeda bye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu